السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيرت سو دواده meel kasta dunida naga daawanaysaan waxaanu daleynahay waa ku mahadsantihiin daawashada fiidiyowgan daawanaysaan muddaynu kala maqnayn oo channelkan aanan programmada aanu soo gelin jirnay ee kala go'een taasna waa idinka raali gelinaynaa dhammaan cidda ku xidhan channelkan oo ah in dadka yar ee samaha raadiya ama inta yar ee samaha jecel insha Allah halkii bay nooga sii socon doonaan inkastoo dad badan ay naga soo codsadeen oo yiraahdeen waxaanu jecelnahay waxa sheekada iyo hadalku ku badan yahay maadaama dhaqankeenu uu yahay oral society aynu nahay oo ahaan jirnay ama aynu nahay bulsho warka wax isugu gudbisa laakiin warkeeni hore wuxuu ahaan jiray war murtiyeysan oo ama gabay la socdo ama suugaan ama mahmaah oo xigmad ay ku dheehan tahay qarniyadan dambe ee technology uu sii kordhay ee la gaadhay internetka la helay waxaad moodaa inay iska hor yimaadeen dhaqankeennii iyo technology-ga inay iswaafaqi la yihiin maadaama qof waliba uu helay platform free ah oo uu wax ka soo odhan karo oo uu ka soo hadli karo waxay noqotay in murtidii iyo hadalkeennii maryihii laga saaro la qaawiyey oo dadkii waxay ku hadlayaan iyo waxay sheegeen toona aanay qiimeyn oo qof waliba wuxuu doono iska soo yidhaahdo insha Allah marka maadaama ay codsiga u batay waxaan rabnaa wax sheekadu ku badan tahay waxaanu survey badan ku sameynay bal YouTube-ka dadka YouTubers ee YouTube-ka wax soo geliya maxay soo geliyaan fiidiyoda loogu daawashada badan yahay survey kale oo asna aan dadka la dhaxmarnay oo weydiinay dad badan oo at least 5000 gaadhaya fiidiyoda aanu qiimeynay iyo dadka YouTubers wax soo geliya waxay u bateen qof caayaya qabiil la caayayo iyo dhalinyaro badan oo YouTubers oo aad mooday inay ugaarsi ugu jiraan qof khalad ka dhacay gabadh yar oo miskiin oo isqaawisay oo hadii laga waanin lahaa ka toobad keenin lahayd ama ka waan toobi lahayd inay raadiyaan oo sii faafiyaan fitnadaas marka waxyaaba dadka ugu badan ee la daawada waxay noqotay kuwaas iyo qof soo fadhiisanaya oo hadlaya oo hadalkiisa wax qiimo ku jira aanu jirin marka taas way noo cunto muweeday sheekooyinka noocaas aanu idin soo gelino finally waxaan go'aansanay in aanu idin soo gelino programmo oo hadalku xoogaa uu ku badan yahay oo sheekooyin ah laakiin sheekooyin motivational ah oo ku dhiirigelin doona nolosha iyo hadaaftaada iyo goolkaaga inaad gaadho kugu dhiirigelin doona xikmad iyo murtiina ay ku dheehan tahay haddii intaas aan ka dhigo hordhac iyo waxyaabaha aanu u bedelnay programmadii hore technicalka ahaa ee aanu idiin soo gudbin jirnay inkastoo iyagana aynu ku dhex wadi doono insha Allah intaas hordhac u noqoto sheekada ugu horeysa caawa aan rabo inaan idinla sheer gareeyaa waxa weeye waa sheeko runtii murtida ku jirta aad u malaynaysa inay dawo u noqon doonto ama ay dawo u tahay community-gana Soomaaliyeed cudur iyo xanuun aynu qabno oo ah faafinta fitanka iyo warka beenta in la sii gudbiyo markiiba qof intuu warku keeno adaan hubsan inaad markiiba sii faafiso sheekada aan soo noqono ninba wuxuu u tagay nin saaxiibkiisa oo runtii dadka xigmadda lagu tilmaamo ah oo nin xakiima ah kabacdi dadkeena waa taqaanaa waxay jecel yihiin inay warka mar walba war gudbiyaan ninkan wuxuu damcay inuu ninkan saaxiibkiisa u sheego nin kale ay saaxiib yihiin xaaladda uu ku sugan yahay oo uu war uga geeyo macni kaas inuu war uu ka soo qaado inuu kan u sheego ninkan nin caqli badan buu ahaa oo xigmad lagu tilmaansado intaanu sheekadii sii dheeraanba ayuu joojiyey wuxuu ku yidhi waan ku arkaa oo saaxiibkii baad sheeke iyo war iga wadaa intaad warkiisa ii sheegin warkaagu ma soo maray saddexdii wax sifeyn jiray ama saddexdii wax kala shaandhayn jiray oo Englishta waxaa loo yaqaanaa 3 refineries refine waxa weeye marka saliidda la kala miirayo ama batroolka oo kale afka carabigana waxaa lagu yidhahaa almasaafi athalaatha ama almasaafi thalath saddexda warka kala shaandheeya ee warka kala miira ninkan odaga asaga shaqadiisu waxay ahaan jirta sida dadkeena u badan yihiinna inuu war qaado
isaga muhiim uma ahayn warka hubintiisa iyo xaqiiqadiisa iyo marka way wax cusub bay ku noqotay maxay yihiin saddexda wax shaandheeya rasuul kuma fahmin saddexda wax shaandheeya maxay yihiin deeto wuxuu u bilaabay in ta ugu horeysa uu u sharaxo asagoo su'aal uga dhigaya wuxuu yidhi warkaagu xaqiiq ma yahay oo adiga laftaada warka ii sidaa ma hubtaa warka xaqiiqadiisa ma xaqiijin karta in warkaasi xaqiiq yahay oo ma hubtaa markaasuu yidhi may wallaahi ma hubo aniga lafteeda dad baan kasii maqlay marka wuxuu yidhi saddexdii wax sifeynayaan kuu sheegay warkaagu tii hore uu ku dhacay oo adiga laftaadu xaqiiqada warkaas ma hubtid bal aan eegna buuri labada kale inuu ku baaso marka waan kaa qaadanaya warkaas ta labaad warka aad saaxiibka iiga sidaa khayr ma yahay bishaare ma yahay wax wanaaga saaxiibkay miiga sidaa oo miigu bishaaraynaysa wanaag saaxiibkay helay ama khayr kusoo kordhay marka wuxuu yidhi may wallaahi waa opposite-ka ama waa cagsiga oo wanaag lagama sheegin ninkaas marka wuxuu yidhi taana warkaagu ku dhacay oo shar lama dhegeysto ta bal saddexaad laga yaaba haddii uu ku baaso inaan kaa qaato warkaas ta saddexaad wuxuu yidhi warka aad saaxiibka iiga sidaa faa'iida ma ku jirtaa oo war qiimo le ma yahay adigaagan warka sida faa'iida ma kuugu jirtaa aniga warka aad ii sida faa'iida ma iigu jirtaa marka wuxuu yidhi may wallaahi midkeena faa'iida uguma jirto waayo wuxuu ahaa waran dad ka soo maqla uun marka wuxuu yidhi warkaagu saddexdii wax sifeynayay ee warka shaandhayn jiray saddexdiiba wuu ku dhacay sideed rabtaa inaan warkaas kaaga qaato adiga warka siday ma hubtid inuu xaqiiqadiisa meeshii maad joogin dad kalun baa kugu yidhi khayr ma aha oo bishaara ma aha oo saaxiibkay war wanaagsan kama wadid faa'iida kuguma jirto anigana faa'iida iguma jirto marka wuxuu yidhi niyow warkaas armay qurux badantaynu halkaa kaga tagno aan raacino xadiis abaa hureyre nabiga uu ka wariyey sal allahu alayhi wasalam oo aad u malaysa inuu koobsanayo sheekadaas oo dhan waa xadiiskii macruufka ahaa waad garanaysay ahaa man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofkii ilaahay iyo maalinta aakhira rumaysano ama khayr ku hadal ama iska aamus marka alxikma almustafaada sheekada khulaasadeeda iyo xikmadda ku jirta laga faa'iidaya waxay tahay marka qof warkuu keeno inaad iska hubiso oo aad ku qiimeyso saddexdaa aynu soo sheegnay miisaankooda aad saarto oo aad ku kala hubiso haddii xitaa qofka warka kuu sidaa uu yahay qof aad ixtiraamayso niyadaada ka qiimee warkiisa oo saddexdaas ku qiimee saddexdaas shaandha saar miisaankaas ku qiimee in warkiisu run iyo in kale markiiba way ku kala cadaanaysa kuu soo baxaysaa qof dhalinyaro saaxiibka uu yahay oo isku kalsoontiin haddii uu yahayna waxaad tidhaa hebelow ama heblaayoy warkaagu saddexdii ma soo maray marka insha allah waxaan u malaynaya sheekadaas in laga faa'iiday haddii adiga aanay xitaa ku anficin oo kula sahlan tahay ubadkaaga waad usoo gudbin kartaa waad uga sheekeyn kartaa runtii ubadku ama carruurtu way jecel yihiin in loo sheekeeyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh